maanta waxaan barnaamijkeegan uga hadlayaa laba qodob oo kala ah waqtigii admis kuwii 30 bishii December ay bixisay oo runtii wax yar maalmo ay ka dhiman yihiin ciidamada imaan doona iyo Ethiopia ma kamid yihiin ciidamada imaan doona su'aashaas ayaan runtii waxa si weyn ugu faahfaahin doonaa halkan qodobka labaadna waxay tahay shirkii Ankara ka dhacay ee Soomaaliya Ethiopia lagu heshiisiinayay maxaa ka hirgalay goormuu soo hirgalaya goormaas la ballamay iyo wararka runtii waxa xaqiiqda ah marka hore aan ku hormaro kuwii 30 bisha December waxa ilaanaya ama soo afjarmaya ciidamadii nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya dibi ahaanba mandate-ka ay haysteen ayaa soo afjarmaya waxaana bilaaban doona mandate cusub waxa jiri doona gap sababaha ciidamada loo geyn doona halkaas tuuto oo runtii waxa ciidamada Soomaaliya raas Kamboni loo geeyay meelo badan loo geeyay kulbiyo xuduudada meelo badan loo geeyay Kismaayo ereedeeda ilaa iyo dhinaca Hiiraan meelo badan xuduudada loo geeyay ciidamada waxay ku agtaa kuwa Suudanka in labada yimaadaan laga yaabaa marka meeshii haday banaanaato waxa caqabado kale ayaa la kulmi doona marka su'aasha taas baa halka waxaan ka hadlayaa mandate-kaasi tudiyaa leh kan imaan doona oo lagu magacaabo UNSUM ciidamadaasi tudiyaa imaan doona waa horta waa Kenya, Uganda, Masar iyo Djibouti waxa la yiraahdo Ethiopia kuma jiraan Soomaaliya waa xusuusataan inay waxa dalalka hadda aan ka hadlo oo dhan inay waxa Uganda soo martay madaxweynaha Xasan Sheikh uu soo maray Uganda inuu Masar soo maray inuu Kenya soo maray Djibouti markaas uu hadda xusuusataan Ismaaciil Umar Geele waxa uu ku jiray oo safarkaas uu ku jiray Ismaaciil Umar Geele waxa uu ku jiray markaas isbitaal France ku yaal ayuu ku xanuunsanaa marka inta laakiinse waxa ma taqaan dal aan sheego waa uu soo wada maray Djibouti wuxuu kula hadlay laba kuleba waxa qadka telefoonka sida warka aan ku helnay marka horta waxa uu kala hadlay ciidamada imaan doona iyo budgetkooda iyo warqadahooda iyo dokumentigooda sida la socotaan waxa Soomaaliya loo ogolaaday oo UN-ka EU-da IGAD African Union European Community iyo Mareykanka iyo UN-kaba ay u ogolaadeen Soomaaliya in ay ciidamada ay doonayso iyada ay raali ku tahay in ay dalkeeda ka howlgali karaan oo kaliya waxa ku faragelin kartaan in ay jirin waan ay u madax banaan tahay marka dokumentigaas la qoray waxa la qoray in aysan Ethiopia ku jirin adduunkuna wuxuu u shaqeeyaa proposal iyo project iyo qorshe waxba la sii waxa diyaariyaa oo budgetkooda la sii dalbadaa inta dal aan sheego hadda Masar ugu horeyso Uganda, Kenya, Djibouti ayaa proposalkaas lagu wada qoray budgetkeena waxa loo diray UN-ka European-ka labada sano ee soo socota cid budgetkaas inta waxa maalgelinteeda la siin lahaa Soomaaliya ay u ogolaatay Ethiopia kuma aysan jirin marka waa la gudbiyay proposalkii budgetka waa la soo ogolaaday oo bisha January 2025 waa ay bilaabanaysaa qarashkooda oo u bilaabanaya Ethiopia aan ku jirin marka dad ba hadda waxaan maqlaayay Ethiopia Soomaaliya waa heshiiyeen Ankara ku heshiiyeen marka Ethiopia soo laabanaysa kan marka wararkaas inta warar waxa iska fadhi ku dirir ah runtii waxa adduunkana waxa uma shaqeeyo noocaas oo kala ah marka adduunka waxa qorshe iyo proposal iyo project iyo waxa ma taqaanaa la dalbadaa waxaan waxa lacagahan lagu shaqeeyo free kuma shaqeynaysa Ethiopia dawladaha joogna free kuma shaqeynayaan markii askar baa imaanaysa dad khibrad laba imaanaya qalab bay keensanayaan logistic waxyaabo badan bay u baahan yihiin waxa soo dhan qarashkoodii waa ay qorteen waa ay dirsadeen waana loo soo approve garay Soomaaliya dalalkaas marka Ethiopia kuma jirto laakiin Ethiopia inta iska timaada anigana waxa waa heshiina Soomaaliya ma soo gariye bal waxa gawaarideeda iyo hubkeeda iyo qalabkeeda iska soo qaadanaysa ciidankeena iska soo dirayso marka adduunka saas uma shaqeeyo laakiin dad badan waxa runtii ma dhigi karo waxa ma taqaanaa jahli iyo aqoon darro iyo miyaa jira laakiin waxaan ku tilmaami karaa in ay tahay waxa ma taqaanaa machine ama propaganda machine war waxay dhahan oo runtii waxa caqalad iyo ummadda Soomaaliyeed waxa oo hadda runtii waxa la ildaran maxay ahayd la ildaran ma taqaanaa information xumo iyo runtii waxa dawlad xumo iyo dawlad laciif ah iyo runtii waxa ayaa la sii caqaladeynaya laakiin waxa accountability leeyahay ma jiro qofka warku rubo halka ka sheegaya marka aniga kuma fogaanaya dadkaas iyo runtii laakiin waxaan idin cadeynayaa waxa leeyahay Ethiopia inay ku jirin mandate-ka cusub ee Soomaaliya imaan doona Ethiopia hadda xuduudeeda waa ay soo gashaa waa ay ka laabataa markii dalan derisnahay waa ay xuduudo waxa hadartaan runtii waxa aan ilaasho karno oo awood aan u leenahay ma jiro xadgudubdi waa iska jiraan laakiin waxa wax loo wada og yahay wax loo wada jeedo waaye Soomaaliya hadii xuduudkeeda waxa ku 30 December la dhaafan ciidamadaas ayaa badan la wada geenaya waxa ku soo xadgudbi kartay waxa ay excuse ka dhigan karto oo ay dhigi karto shabaab baan ka baqay inay iga soo galeen ma jiro markii ciidamada iyada la mid ah ama ka awood badan ayaa meelahaas fariisan doona oo ay Soomaalida kaalmeynayso markaas marka umaleemahay inay bisha January waxa ka dambeeyay Ethiopia ku soo xadgudbin doonto Soomaaliya haddana waxa heshiis waxa la wada galay territorial integrity and the sovereignty of Somalia ilaahu midka
Somaliland iyo waxa xuduudka kala leedahay waxa waa ama kilinka shanaadkii xuduudka kala leedahay kaba soo gudbi karta xataa because territorial integrity and the sovereignty of Somalia wax la yiraahdo ayaa la kala saxiixday marka waxa waaye amaankeedina waxa waaye waa la sugayaa xuduudaha sutod marka waxa waa afayeen dawladeed manihi laakiin waxa jiro oo xaqiiq ah ayaan dadka waxa waa u iftiiminayna that's my point marka waa ka gudbayaa qodobkaas sutod oo waxaan u gudbayaa qodobkan kale ee runtii waxa waaye dadka xasaasiga ah runtii waxa waaye shirkii ankara ka dhacay ee Soomaaliya Ethiopia baabad loo saxiixay maxaa Somaliland runtii waxa heshiiskii ee gasho MOU-dii waxa waaye taqaana loo diiday hadiiba waxa waa loo saxiixay bad oo hadda waa kaasaadii ciidamadoodii Mareyniska bay keensanayaan oo madaxweynihii Faransiiska oo hubka iyo waxa waaye maraakiibta iyo ciidamada u tababaray baa meeshii marka waxa waa runtii qofka haduu waxa waaye ma taqaana information sax ah uu doonaa waa inuu dhageystaa meelaha source-gooda uu sax u yahay waxa ka soo baxay communique ka soo baxay iyadoo English iyadoo Soomaaliya af Turkiya Carabi Swahili any language ayaa lagu qoray communique waa heshiiskii ka soo baxay Ankara ee Soomaaliya Ethiopia waxa waa lagu heshiisiinay qodobadii ku qoraa wax yar oo badan ma ahayn saddex paragraph ah waa 7 qodob kaliya marka waxa waa dadkii inay iyaga waxa waa information raadiyaan miyaa dhibaysa ma dadkii inay iyaga waxa waa ma taqaana ee waxa xaqiiqada ogaadaan ayaa dhibaysa mase waxa waaye machine waxa waaye ma taqaana waxa riixaya ma taqaana propaganda oo campaign ayaan ku jirnaa waxa campaign aan gooni waay laakiin waxa siyaasadana gooni waay laakiin wixii qaranimada dalkeena ahna waa gooni marka ay waxa waaye dibadaha iyo dalal dibad iyo Soomaaliya ay taagan tahay wax walba in xaqiiqada laga abaaro ayaa muhiim ah marka Soomaaliya Ethiopia heshiiskoodii waa draft wax la yiraahdo oo ilaa ay hadda waxa waaye labadii saxiix wax la yiraahdo waxa waaye la isku afgartay oo lagu heshiiyay waxa lagu heshiiyay in badda Soomaaliya ay runtii waxa waa commercial purpose runtii waxa u imaan karaan waa sida Tanzania iyo Uganda ay waxa waa commercial purpose ugu dhaxay Djibouti iyo Ethiopia sida commercial purpose ugu dhaxayo Soomaaliya kaasoo kale waay haddana la isku afgaran February 25 ayaa waxa wada kulmaya technocrat dad runtii qubara ah ee runtii ku xeel dheer cilmiga badaha waa UNCLOS-ka wax ka yaqaan UNCLOS-ka waa xeerarka iyo sharciyada badaha waxa waa adduunka lagu kala maamulo waa nautical mileska waxa waa dadka cabirkooda yaqaana dadka xeebaha iyo waxa waa ma taqaana wadamada waxa waa ma taqaana landlord waxa waa sharciyadooda wax ka yaqaana ayaa imaan doona meeshii marka Ethiopia waxa waa dalalka dariska ah waxa jira sharci dhigayo oo ay xaq ku leeyihiin in aad waxa waa baddaada ka kirayso waa international law oo runtii waxa waa ma taqaana UN-ka charterkiisa ku qoran wadamadaas haddii aad adiga waxa baddi aad ka kireen baddi dhankoodan aad ka xigtay markab lagu soo xiray waxa waa ma taqaana Arctic iyo Atlantic-da ayay wax ka soo degsanayaan waa maya it's not a logic marka waxa waa common sense-ga Soomaalida waxa waa aqoonta kuma yara wax dhageysiga kuma yara laakiin waxaan u sheegayaa sharcigaasi wuxuu dhigayaa dalalka dariska la ah dalalka landlord ah they must inay ka kireeyaan bad waxyaabahoodii ay wax ka soo degsadaan kirina ka qaataan marka waxa qofkii hadda waxa waaye ka kirey waxba ku heshiinaysa marka heshiiska hadda February dhici doono waxyaabaha uu doonayo nooca yihiin ayaa laga wada hadli doonaa waxyaabaha waxa waaye ma taqaana waxaan ka kireeyaa marka iyo Kismaayo iyo Baraawo iyo Xamar iyo Hoobiyo iyo Mareeg maxaqiin ka kireeyaa Garacad iyo waxaan ka kireeyaa Berbera waa heshiis waxa la isku wada afgaranayo haddaan doono waxaan dhihi karnaa qorada Soomaaliya dhigi kartaa badda casuulanka ma kireenayo waxaan ka kireenayaa badda oceanka Indian Oceanka marka waa heshiis la isku wada afgaranayo oo aan laga hor dhici karin la soo imaan doono oo qubaro iyo dad aqoon-yahano ay soo imaan doonaan marka runtii waxa waa dad Soomaali ah oo qubaro ah adduunka waa ay joogaan laakiin waxa waa dad badan oo runtii waxa jira they feeding wrong information marka hadda kuba fogaanay arrimahaas oo runtii waxa waaye ma taqaana laakiin waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto caalamka ay naga dhageysanaan clipkaan inta waxa dad badan dadka waxa la share gareeyay iyo hal shaashad garaacay iyo hal shuushu iyo madaxii aniga dhaqankayga that's not my culture laakiin kan waxaan idin ka codsanayaa meel dheer inaad gaarsiisaan information kan oo runtii waxa waaye xaqiiq ah 25 waxa waaye bisha February Soomaaliya iyo Ethiopia waa soo imaanaysaa badii iyo heshiiska ay wada galeen ee hordhaca ahaa Ankara oo draftiga ahaa oo communique ka soo baxay ayaa runtii waxa waa la sii xaqiijinaa hadday yiraahdaan anaga waxaan idinka kareenaynaa markabkiin halkaas uu ku soo xiranaya hadday diidaan waxa la leeyahay bad waa ka kari adaa diidi sida hadda waxa waa Djibouti ay u tiri waxa waa qaalib ay ugu tahay wax raqiis raadinaysa qofka duu xiibsanayo is looking waxa waa advantage asna dhankiisa inuu wax raqiis u helo raadinaya anaga maadaama aan dhowr iyo 20 xeebood aan qabno dhowr iyo 20 dekedood aan leenahay haba yar yaraadaan hawa weynaadaan nooc dana ahaadaan runtii waxa hadii la maalgeliyo wax badan bay ka soo degsan karaan marka waana lagu heshiin karaa marka insha Allah taala arrinta kuma fogaana intaas aan ugu baxaya waana mahadsantiin